waxaa maanta halkan noogu soo xidhmay shirkii socday ee ku saabsanaa arrimaha xisbiga ee hogaaminta sare ay ka qayb qaadanaysay isla markaana guddoomiyaha laga bilaabo ilaa amraarka ugu sarreeyo heer kelil ilaa gobol ay ka soo qayb galeen qaab aad habsami ah ayuu u dhacay shirkani waxaana runtii ka soo baxday oo muuqatay in bislaansho sare si ku jirto oo garaad sare ah oo wax ku salaysan danaha ummadda uu ahaa wixii laga doodahayay su'aalada looga dhigahayay wixii faahfaahin u baahan mas-uuliyiintii sare saddexdii cisho sidaas ayuu u socday ugu dambaynna saaka ayaa lagu soo gabagabeeyey oo lagaga jawaabay su'aalihii muhiimka ahaa maaragtay ku saabsanaa danaha ummadda iyo xisbiga aragtida uu ka qabay iyo wuxuu ka taagan yahay marka aad baana loogu farxay in runtii dad heerkiisa fahan aad u sarreeyo inuu maaragtay ku sifaysnaa maanta amraarka meeshani ka soo qayb galay tababarkii saddexda cisho aan soo qaadanaynay runtii aad iyo aad mid u fiican buu ahaa mid hogaamin tayo leh dalka iyo deegaanka badan u ah hogaamin fiican oo tayo leh oo karanti lagu soo saaray bay ahayd hal aragti oo midaysan lagu qaadanay bay ahayd mid aan weligeed deegaankaana ka dhicinna way ahayd oo qof walba fikirkiisa aragtidiisa hogaamineed uu ku dhiibanayo jawaabihii maanta guddoomiyaha xisbiga iyo madaxweynahaba ay ka bixiyeen iyo madaxweyne ku-xigeenkumana mid hogaamineed oo aragti hogaamineed leh ay ahayd mid hogaaminta deegaanka maanta saddexda cisho ee tababarada qaadanaysa ee gobolada iyo heer deegaanka isugu jira ay ku wada qamcinna way ahayd mid lagaga faa'iidaysanayo shacabkii maanta baahidiisa iyo dhibaatooyinkii deegaanka soo maray iyo dalkaba soo maray lagaga baxayo oo loogu danaynayo aragti horumareed aragti siyaasadeed isku dhacyada qoomiyadaha oo ay ka dambeeyeen dad ku danaysanayay horey u abuureen in si waddo walaalo ah si wanaag ah laisugu soo dhoweeyo inta badanna way lasoo wada afdhajaray sida madaxweynaha iyo guddoomiyaha noo sheegeen waa dhammaystir wixii hadda ka dambeeyana waa wax u yaalla hogaamintan tababarka saddex maalmood socday ee maanta noo soo xidhmay waxaan ka faa'iidnay wax aad badan marka koowaad waa la isqanciyey xisbiguu isqanciyey wuxuu isku qanciyey dhibaatooyinkii magaca xisbiga lagu soo sameeyey qaabkii ay ahaayeen iyo sidii macnaha ay u dhaceen si dhaba ayaa laisugu caddeeyey waana la iska qanciyey xaqiiqiyan anigu waxaan ugu qancay ama dee dadkiiba aan arkayay waxay u qanceen si xad ah waxweyn aad baan ugu farxsana macnaha insaan loo qanciyo xubnaha ama aduu mas-uuliyiinta ugu sarreeya deegaan xisbiga xubnaha xisbiga inay ku qancaan horta xisbigooda iyo macnaha qaabkan maanta wax u socdaan hogaamintana wallaahi waan ku farxay horta shucuurteeda aad bay bedeshay nidaamka loo hogaaminayey tababarka aad iyo aad baan ugu farxay macnaha bulshadana aad iyo aad iyo aad ayay u bedeli doontaa marka hoos loo dhaadhiciyo xaqiiq baa laisku sheegaya dimuqraadiyad baa iminka toos oo xorriyatul qowlkiiba yaa friya qaabkii loo doodayey saddexda maalmood doodihii socday waxa loo doodayey si ikhtiyaariya qofku fikirkiisa oo xor ah ayuu ku doodayey uu soo bandhigayey